Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Cabdullah. Okay, halkan waa kanaalka dunida. Maanta muuqaalkeena waxaa ku saabsan yahay su'aal adag. Maxaad samayn lahayd haddii ay kuu caadaato inaad noolaanayso 6 bilood oo keliya? Waxaa laga yaabaa in su'aashani ay tahay mid yara qariib oo laga dhadhansan karo saadaalin xun, laakiin wuxuu inoo iftiiminayaa xaqiiqooyinka badhkood. Haddii waqtigaas koobani kuu dhiman yahay, kumaad waqtigaaga la qaadan lahayd? Sidee waqtigaaga uga faa'iidaysan lahayd? Maxay noqon lahayd shaqooyinka aad qaban lahayd adiga oo aan dib u dhigin si aad u hagaajiso u dhammaystirto? Jawaabta su'aashani waxay daaha ka qaadaysaa fikirkaaga qayb uu madow kaga jiro. Waxay kuu sheegaysaa inuu jiro shaqo aad u baahan tahay inaad dhammayso, iyo qof ay fiican tahay inaad la heshiiso, iyo dad qaraabo ah oo ay tahay inaad booqato. Waxay kaa dhigaysaa inaad dib u eegto arrimo badan oo muhiim ah, kuwaas oo aad jeceshahay inaad dhammaystirto inta aanad dhiman ka hor. Nasiib daro, in badan oo inaga mid ah wuxuu isku brograami xaalad degdeg ah oo inuu shay walba dhammaystiri karo waqtiga u dambeeyay. Imasa ayaa waqti qiimo leh inaga lumay fikirka noocan ah dartiis. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxay soo booqday nin aan saaxiibo nahay, wuxuuna ii sheegay inuu kitaab qorayo. Waxaan weydiiyey waqtiga uu bilaabo. Wuxuu ii sheegay inuu dhammaystiri doono 2 sano kadib. Waxaan weydiiyey, kitaabkani ma yahay mid faa'iido leh oo dadka anfacaya? Wuxuu ku jawaabay haa oo haa. Waxaan ku idhi, maxaad 2 sano oo dhan u sugaysaa maadaama kitaabkaagu yahay mid faa'iido badan leh? Wuxuu igu jawaabay su'aasha caanka ah ee waqtiga igu filan ma haysto. Kani wuxuu tusaale cad u muujinayaa kuwa luminaya afkaarahooda qiimaha leh, xujana ka dhiganaya kelmadda la yidhaah waqti ma haysto, oo ah jeelka waqtiga. Dib ayuu u dhigayaa afkaartiis iyo mashaariicdiis isaga oo leh waqti ma haysto. Wuxuu ku sugan yahay sugid joogto ah iyo dib u dhig joogto ah. Hamigaaga si aad kor ugu qaaddo oo aad u noqoto hogaamiye waqtiyeed fiican, ku baraarug arrimaha soo socda. Go'aanso inaad noqoto mid si fiican u maamula waqtigiisa. Meesha ka saar dib u dhig iyo waqtiyada lumaya. U sheeg dadka kugu hareeraysan go'aankaaga, kana codso inay kugu caawiyaan hirgelintiisa. Sameyso jadwal shaqo ah oo kugu caawin karta inaad sii wado waxaad samaynayso, ha ahaato shaqo iyo waxyaabaha la halmaala. Hore u seexo, horena u toos. Caqliga qarsooni waxa uu ku soo jeedaa aroortii hore. Inta aanad tallaabo qaadin, diyaarso wax kasta oo aad u baahan tahay: kombiyuutar, qalin, mastarad, faylal. Taasi waxay kaa fogeynaysaa in maskaxdaadu baahdo oo waqtigaaga ku lumo baadhista shay'ada aanad diyaarsan. Mashruuca u qaybi mashaariic yaryar, kolba qayb dhammaystir. Adeegso istiraatiijiyad daqiiqadaha 10 ah